maalmo kooban ayaa ka harsan waqtiga loo qorsheeyay in qabsoonto doorashada ku celiska ee dalka Kenya inkastoo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisu ay shaaciyeen inaysan ka qaybgali doonin doorashada Kenya bulshada Soomaalidu waxay ka mid tahay qowmiyadaha ugu deegaanka ballaaran juqraafi ahaan marka la eego qowmiyadaha ku nool Kenya asahaatee xilliyada doorashada waxa soo wajaha qalqal amaan iyagoo ka cabsi qaba qalalaasa ka dhaca dalka maadaama ay ka mid yihiin dadka ugu ganacsiga badan dalka Kenya qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay marxaladaha siyaasadeed ee gashay Kenya tan iyo bilowgii bishii Agoosto ee sanadkan waxaan leeyahay dawladda hadda xaalka isugu yeeray baarlamaanka kursiga hal bedelo doorashan hal la gala meeshii ay ahayd ay ka dibdhicin ninkan waxa doon waxa way doorasho in la geliyo Soomaaliya kursiga asinaya in oo maartay ahade aan doorasho la gelin kursiga hal bedelo weegan dhaxdii weega dambana doorasho hal laga qayb galo waa election ka 26 madaxweynaha lagu tartamayo waxna uma aragno okay waa ganacsiga everything way kala socdaan wax dibna ma jiro magaalada aragtay silin maanta tamayal maxaana keenay waa xogaaga weey hadoo kale meesha ugu lacag badan bay ahaan jirtay Isli ganacsi ma jiro waxba ma jiro nin walba dukaamada albaabadu iskugu xidhaya albaabadu yaa la iskugu xidhay dhibaatada maxaa keenay nin baa shalay ku guuleystay haday maxkamaddu iska dayso tirada ninkaas shalay ku guuleystay maanta nabad baan daaqi lahayn hadda nabadna ma joogno dagaalna ma joogno soo xaaminsanahay Soomaalidu way naxsantay laakiin dalkiina rabsho ka dhici doonto ma leenahay waa mucaaradkeen wuxuu iltizaamay dastuurka haddaanay dhalinyarada xaafadda Isli sidaan u aragno electionkan ama doorashada waddanka Kenya waxa way guud ahaan si aad bay u saameysay dadka becsharada doorashada meel araganahay inay oo meel raayis inti madaxweynaha way qosbaan intii soo sharaf leh oo ogolaaday arrinta barnaamijka Usangadi meeyadeedan qosbaan nabadgelyada inuu siniinka dadaal go'aan maanta ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in doorashada Kenya ay ku tartami karaan dhammaan musharaxiintiisu soo taagay xilka madaxweynaha inkastoo bartamihii bishii tagtay maxkamadda sare markii ay laashay doorashada ku dhawaaqday kursiga madaxweynaha inay ku tartami doonaan Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga awalow 10kii bishan Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisu ay shaaciyeen inaysan ka qaybgali doonin doorashada balse go'aanka maxkamadda ka soo baxay maanta ayaa u muuqday in marnaba hadalka hogaamiyaha mucaaradka aan loo hakin doonin doorashada ku celiska ee waddankani Kenya Cabdiwali Xuseen Tawakkal telefishinka caalamiga ah Universal magaalada Nairobi